iyadoo shalay isbitaalka Yardamiile ee magaalada Muqdisho ay ku dhasheen laba caruur oo mataana ay dhashay xaaskii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay wariye Cabdinaasir Cabdulle Gacal ayaa maanta waxa la gaarsiiyay deeq lacageed oo ka timid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre taasi oo loogu talagalay caruurtaasi mataanaha ee abuud ku shahiiday oo adeegida qaranka Soomaaliyeed agaasimaha idaacadda ciidamada qalabka sida Maxamed Muuse Maxamed oo la soo marsiiyay deeqdan ayaa warbaahinta la hadlay maanta waxaan halkan aan u imaanay walaalkeen Allah u naxariistay Cabdinaasir Cabdulle Gacal iyo Dumaash Xamdi oo caruur mataanaha ugu dhasheen isbitaalka Yardamiile ee magaalada Muqdisho runtii waa farxad taasna waxay tahay maadaama walaalkeen oo dhintay nagama dhimanay waa uu dhuntay caruurtiisa joogto oo aan ku qancina Ilaahay asiga oo ofsada laakiin bedelkiis wuxuu siiyay laba wiil oo mataana ah madaxda qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markii uu maqlay dhalashada caruurtan runtii kaalin weyn oo ka qaatay waxaan soo gaarsiiyay deeq lacag mar raba cadadkeeda inaan sheego laakiin waa lacagtan aad u jeedaan runtii oo ugu talagalay isbitaalka iyo caruurta caanahoodii iyo dharkoodii in maxaytoon lagu iibiyo agaasimaha isbitaalka Yardamiile Ibrahim Maxamed Xasan ayaa dhinaciisa damaanad qaaday daryeel caafimaad oo bilaash ah isbitaalka wixii kaga aadanaa bimunaasaba wuu qabtay xaaladooda caafimaadna aad bay u fiican yihiin hooyadii iyo labada coogna isbitaalka ayay hadda ay ku jiraan dhawaanna waxaan rajayn doonaa iyagoo seef qaba ama bad qaba inay ka baxaan isbitaalku wuxuu ballan qaadayaa inuu muraaqabeeyo kor joogteeyo xaaladda hooyada iyo labadaas cunug haddii ay ka baxaan isbitaalkana si nabadgelyo uga baxaan insha Allah tacaala wuxuu ka warhayn doonaa xaaladooda caafimaad si ugu wanaagsan waliba waxaan sii ballan qaadayaa anigoo agaasinaya isbitaalka intuu isbitaalkaas jiro inay ilmahaasi xaaladooda caafimaad wixii related ama la xiriira uu isbitaalka ka fala qaadi doono oo uu hayn doono hooyo Shamsa Maxamed Amiin oo ah hooyada dhashay wariye Gacal ayaa kaga mahad celisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre garab istaag oo uu sameeyay qoyska marxuumka waxaan halkan ka salaamayaa madaxda sharafta leh oo ka mid yahay ra'iisul wasaare Cali Khayre Xasan Cali Khayre waa maamadii dhashay shahiidkii u dhintay qarankiisa Cabdinaasir Cabdulle Gacal waa ku mahadsantiin deeqdii lacageedana soo gaarsiiseen aad iyo aad ayaa ugu mahadsantiin boqolkiiba boqol waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sidaan isii ka fiican inaan idinka heli doono wariye Cabdinaasir Cabdulle Gacal ayaa 14 Agoosto 2019 ku shahiiday degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose xilli uu u qidmeynayay qarankiisa waxaana uu ahaa dhalinyarada wax baratay kuwoodii ugu firfircoonaa